Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxay ku soo qaadanaa odhaahyadii filosoofka Giriigga ahaa Plato, kuna soo dhowaada. Cilmi yaroo lagu camal falaa ayaa ka mudan cilmi badan aana lagu badhaadheen. Ruuxa tolmoon uma baahna xeerar u dhiga siduu u dhaqmi lahaa. Dembiga ugu weyn ee dulmiga soo raaca waa inaanu daalinku gudin wuxuu u geystay. Waa inaad xaqiiqada si buuxda u raadisaa, xitaa hadday galaabsanayso ruuxdaada. Saaxiibtinimada ugu dhibta badan leh wato ruuxu la saaxiibo naftiisa. Ninka tolmoon warka dhibaatada xalliya ee ma aha ka geysta. Ruuxa diida maanta inuu talo bilaash ku jirto u qaato, berritole ayuu sanka uga tollaan doonaa murugo qiimo badan ku fadhida. Ruux walba awaan buu noqdaa hadduu jacayl qalbigiisa taabto. Jacaylku waa inuu meel madhan wax la anfacsada ay ka soo baxaan. Gabadha quruxdeeda waxaa lagu qiyaasaa quruxda qalbigeeda. Jacaylka dhabtahay waa ka nacaybka laabaheena ku dugan jacayl u beddela muruganina farxad, ilmadana dhoolla caddayn. Badiba dadku markay awood maamul helaan way xumaadaan. Hogaamiyuhu waa sida webi weyn oo gacmo yaryar ay ka farxamaan. Hadduu macaanaadana way la macaanaanayaan, hadduu qadhaadhaadana way la qadhaadhaanayaan. Muhiimaddu ma aha inaad noolaatid ee waa inaad si san u noolaato. Haddii samadu xorriyad ay soo dayso, waxaad arkaysaa kuwa addoomaa oo dallad ka sita. Eedaabta heerka ugu sarreeya waa inuu ruuxu naftiisa ka xishoodo. Xilliga adagay nafta ayuu toosiyaa in leed intuu nolosha adkeeyo. Barwaaqaduna nafta ayay dishaa in leed intay nolosha hagaajiso. Noloshu waa yididiilo, ruuxa yididiilada waayana noloshu wuu waayay. Shaqadaada tayee, riyada ayay rumoobaye. Fikirku waa inay naftaada ruuxdaada la sheekaysato. Badso samaanta horraanteedu way qadhaadhahay, cirib dambeedkeeduna wuu macaan yahay. Sharaftaada dhowr way ku dhowraysaaye. Ruuxa kugu ammaana wanaagaanan lahayn isagoo ka raaliya, waxa uu kugu caayo xumaanad aanan lahayn isagoo ka cadhaysan. Badhaadhuhu waa inaad kala garaysanaanta iyo siloonaanta. Qofka ay dadku ugu neceb yihiin waa ka xaqiiqada ka hadla. Sidaad u noqotay ruux mudh leh oo mudnaan marka hore lagu qalad fahmaa. Jaahilnimadu waa asalka xumaha oo dhan. Haddii xaqiiqadu ay gabadh ahaan lahayd, dadka oo dhan ayaa jeclaan lahaa. Aqoonta aad naftaada u leedahay kaga kalsoonow ammaanta ee dadku ku ammaanayaan. Baahidu waa hooyada hal-abuurkii. Gabadh aan gacaltooyo lahayn waa geeri. Weelka madhan haddii la garaaco wuu dhawaaq dheer yahay. Ruuxa aqoonta yarna wuu muran badan yahay.